galad sidee u aqoonsatay haddaba sidaa wad ognahay waxaa soo gabagaboobay qaybtii koowaad ee musalsalkii dhaxal dadkii oo dhan waxayna soo weydinayaan wakhtiga saxda oo soo gali doono haddaba muuqaalkeena maanta waxaanu ku eegi doonnaa wakhtiga saxda oo soo gali doono musalsalka dhaxal qaybtiisa labaad iyo sidoo kale wax laga filan karo iyo waxyaalaha isbeddeli doono iyo filinka dadka ka bixi doonaan haddaba intaan gudaha u galin walaalkaygii walaasheeda waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan laag noo saarto janalkan aad ku soo biirto intaasi waxba kaama dhibayso aniga ayay farxad noo tahay insha allah aad baad u mahadsan tahay una soo dhowaada muuqaalkeena maanta haddaba sidaan wada ognahay musalsalkani dhaxal ayaa noqday musalsalkii ugu macaanka badnaa waayo wuxuu la soo baxay wejiye aan caadi ahayn run ahaantii xalqadii ugu dambaysana waxay ahayd xalqadii ugu macaanka badneed xalqooyinka la soo dhaafay ayaan isdhigi karaa waayo waxay ahayd xalqadii ugu saamaynta badneed kadib markii galad oo run ahaantii ku dhacay godkii ugu xumaa abid ama dabankii ugu xumaaya abid haddaba odaygii ducaal lahayay ama adeer ducaalaaba dhahe run ahaantii wuxuu noqday laadirka filimka ayuu noqday waxyaalo badan ayuu qasi doonaa fimilka aad bay iskugu sii xumaan doonaan sidoo kale galad ayaa run ahaantii waxaa ku dhici doono waxaa la dhahay lama filaan waxaana waxay ku noqon doontaa calaa kulli xaal wax la yaab leh waayo asigoo dadaalayo in uu duniyo rajadeeda dib u soo noolaysiiyo ayaa run ahaantii waxaa soo qabtay ciidankii haddaba galad ayaa arrintani waxay ku noqotay lama filaan run ahaantii sidoo kale fimilka duniya iyo aadhahee maamadii waxay ku noqotay iikan lama filaan kadib markii galad lambarkiisa uu dansanaa haddaba dadkii o dhan waxay isweydinayaan marka season 2ga maadaama season 1kii meel macaan badan oo qurux badan lagu jaray season 2ga wakhtiga saxda oo soo gali doono haddaba sidaan wada ognahay filim walbo oo dunida calashaan musalsalada dunida haddaad aragteen ama musalsal aad idin soo qabtay sida kuwan turkida filimka walaalaha la dhahayo hadda wuxuu marayaa seasonka 6aad aan u malaynayaa sooma soo marka season walbo markuu dhammaadana seasonka 2aad wakhtiga ayuu qaataa si loo soo deeyo waayo waxaa la rabaa qaybtii koowaad waxay ka khaldanaa in la toosiyo qaybtii koowaad wax ka sii macaan badan in la keeno ka sii qurux badan ka sii aftahansan run ahaantii waxyaaba halkaan lagu soo koobi karin soo marka dadka waxay jecel yihiin in loo soo bandhigo wax qurux badan soomaan haa marka dadkan waxay ku dadaalayaan inay soo bandhigaan season 2giisa qayb aadaad maxan badan aad sii jeclaysan doontaan haddaba wax walba oo qurux badanna waxay u baahan yihiin wakhti sooma tusaale ahaan gabaray adiga i daawanaya haddii aad doonaysa in maanta tusaale ahaan wejigaaga kuu qurux bato waad bixaysaa shoobinkaad aadaysaa kareenaad soo gadanaysaa kadibna isla maalintaas haddaad kareenka marsato isla maalintaas kaama muuqanay ilaa waxaad u baahan tahay saacado ama maalmo u baahan tahay soomaha sida oo kareenka kuu qabto ama waxyaalaha oo qurux badan kuugu noqdaan anyway musalsalka hadda wuxuu u baahan yahay wakhti si qaybta kale aad ugu macaanaato haddaba waa huwaal qaybta soo socota season 2gana aad buu u macaan badan yahay wakhtiga saxda la rajeynayana waxaa waaye dhammaadka bishani dhammaadka bishani 25 wixii ka dambeeya ayaa la rajeynayaa ama kooda bisha ayaa la rajeynaya inuu soo galo bisha xigta koodeeda inuu soo baxo ama dhammaadka bishan inuu soo baxo labadaas mid ayuu soo bixi doonaa insha allah waxaa la dhahaa xayeysiintiisana goordhow ayaad arki doontaan wakhtigii saxda la soo dayn doono marka waan ogaa waa sugi la'dahay muuqaalkan like saar haddaad sugi la'dahay wixii aad musalsalkan ka baratina xagga hoose noogu reeb aad baad u mahadsan tahay